daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena Mabrook Productions. maanta waxaa idin hayno waxaa ka mid ah la yaabka dunida. waxaan ku soo qaadan doonaa nin u dhashay dalka Talyaaniga oo ku iibsaday moos farshaxan ahaan uu sameeyay 120,000 oo dollarka Mareykanka ah. Say ku dhici kartaa nin u dhashay dalka Talyaaniga oo la yiraahdo Manuel Berottin ayaa waxa uu sameeyay farshaxanadiisa waxa kamid ahaa oo lagu soo bandhigay magaalo kamid ah dalka Mareykanka oo la yiraahdo Miami. waxa uu ku soo bandhigay farshaxan uu sameeyay gacantiisa uu ku sameeyay mooskan oo ahaa mid sharooto dhexda ka marsan ayaa waxa lagu iibsaday 120,000 oo dollarka Mareykanka ah. ninkan ayaa hadda ka hor waxa uu ka yaabsaday dunida mar uu sameeyay fadhiga musqusha oo uu ka sameeyay dahab kaas oo asagan lagu iibsaday lacag tiradeeda aad u badan oo dollarka Mareykanka ah. ninkan oo mar walba dunida ka yaabsada ayaa waxa uu intaas si raaciyay in uu soo bandhigi doono waxyaabo intaas ka sii wanaagsan mustaqbalka. mahadsanid.